بسم الله sanad walba waxaa soo baxa intaas oo liis oo lagu qiimeynayo wadamada adduunka oo dhan liisaskaas oo Soomaalidu ka dal ahaan iyo ka dal ahaanba ay uga jiraan meesha ugu liidata dadka liisaskaas soo qora oo aan weligood Soomaaliya lagu soo dhigin way adag tahay in aad aragto ayaga oo ka sheekeynaya wanaagada ay leedahay Soomaaliya ama qoraya liisaska ay Soomaaliya uga jirto safka hore oo ay uga wanaagsan tahay dunida inteeda kale haddaba maanta halkan waxaan ku hayaa 10 arrimood oo Soomaaliya ka dal ahaan iyo ka dad ahaanba ay uga horeyso dunida inteeda kale ama haddii la qoro liis dunida oo dhan ah ay Soomaaliya ka galaysa safka ugu horeeya 10kan arrimood intooda badan waa wax la wada ogyahay oo aan muran ka taagnayn halka kuwa kalena aan marqaati gashanayo adiga dhageystaha ah in arrintaas ay dhab tahay iyo in kale kow Soomaaliya waxay ugu horeysaa wadamada ugu muslimiinta badan markii nisba ahaan la fiiriyo ama boqolkiiba liiskan wadamada aan ku tartamayno waxaa laga yaabaa inuu naga horeeyo hal wadan ama aanba isku mid nahay wadanka ugu horeeya ama aan anagu ugu horeyno haddii dadka qaar ay keenaan dooda ah in Soomaaliya aysan boqolkiiba boqol muslimiin ahayn ay yihiin boqolkiiba 99.99 ama wax la mid ah qofkii saas yiraahdo ayaa looga fadhiyaa inuu noo keeno ugu yaraan 50,000 oo Soomaali ah oo gaala ah oo meel joogta liiskan in aan ugu horeyno oo kaliya ayaa nooga filan liisaska kale ee soo socda laakiin ayagana waan isaga daray labo wadamada dadka ku nool ay isku wada nooc yihiin halka wadamada qaar ay ku nool yihiin dadyaabo kala duwan kala nooc ah kala diin ah kala midab ah kala hayb ah kala qoomiyado ah Soomaalidu waxaa la yiraahdaa wadad ugu yaraan isku qoomiyad ah isku mid ah saddex wadamada ay dadkoodu ugu ilmo dhalista badan yihiin liiskan sanad walba waxaan ka galnaa 5 ama 6 ayaga oo nooga dhigaya ceeb laakiin anagu waa waxaan ku faanno ilmo waxyaabaha Ilaahay bixiyo waxyaabaha ugu fiican ayay ka mid yihiin sidaas darteed waan ku faanaynaa haba nagu caayaan afar wadamada ugu xeebta dheer Afrika liiskana waxaan qiyaasayaa in aan uga jirno lambarka labaad laakiin haddii aan jasiiradaha la tirinayn waxaan uga jirnaa koowaad adduunka oo dhan markii la eegana ma xuma meesha aan uga jirno oo safka hore ayaan kasoo gelaynaa 5 wadamada ugu geela badan dunida liiskan ma jiraan wax nagu haysto oo waxaan nahay kow wadamada ugu geela badan waa geela la rabaayadaysta arrintaana ma aha arrin ciyaar ah maadaama la qiyaasayo in sanadaha soo socda waxyaabaha lagu tartami doono ay ka mid yihiin badeecooyinka nool markii la soo cuno kheyraadka kale ee adduunka oo hadda gabagabo lagu sheegayo 6 wadamada ugu dhalinyarada badan ama dadkooda ay dhalinyaro u badan yihiin halka wadamada qaar dadkooda ay wada duqoobeen qaarkoodna ay soo dhoofsanayaan dhalinyaro kale wadamo kale kasoo dhoofsanayaan si ay ugu shaqeeyaan iyo wax la mid ah Soomaaliya waxaa lagu sheegaa dadkooda in boqolkiiba 50 60 70 in dadkooda ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah 7 wadamada ugu taariikhda dheer dunida inkasta oo halka Soomaaliya ay ku taalo aan loo aqoon jirin Soomaaliya waagi hore laakiin gobolkaas geeska Afrika oo Soomaalidu degto taariikhdiisa waxaa la sheegaa in la hayo ilaa 7,000 oo sano 8 wadamada ugu xufaada badan ama dadkoodu ay quraanka xifdisan yihiin badankood ma aha liiskan mid la isku raacsan yahay laakiin waxaa maragma doonto ah in aan nahay wadamada ugu horeeya ee dadkoodu badana quraanka yaqaanaan marka loo eego wadamada kale muslimiinta arrintaasna haddii aad dood ka qabto adiga ayaan kuu daynayaa 9 dadka ugu aftahansan dunida liiskan asagana ma aha mid official ah ama mid la isku wada raacsan yahay laakiin adiga ayaan ku marqaati gashanayaa sheeg wadamada adduunka qiimay oo ma jira wadan leh afmaalnimada Soomaalida bal eeg murtiyada Soomaalida halxiraalayaasha gabayada mahmaahooyinka iyo wixii la mid ah ma jira wadan aad qiyaasi karto oo leh arrimaha noocaas anigu ma hayo 10 dadka ugu deeqsisan dunida liiskan asagana ma aha mid la isku wada raacsan yahay laakiin qof kasta oo Soomaali ah ayaan asagana marqaati gashanaya bal u fiirso dhaqamadii hore ee Soomaalida ee martisoorka ee qofkii ku soo martiya adiga oo magaciisa weydiin aad u qalaysay neef inkasta oo dhaqankaas si dabar go'ay bal eeg reer kasta oo Soomaali ah inta ku dul nool ee aan ka tirsanayn sidoo kale waxa eegtaa dadyaabo kale adduunka si ma leeyihiin waxyaabaha noocaas bal u fiirso sida Soomaalida dibadaha jirta u soo diraan lacagaha ma jiraan dad u soo dira oo aad taqaanid bal adigu qiimay dhaqamada Soomaalida ee ku aadan aroosyada sabaha ama alabariyada xafladaha lacag aruurinta sida masaajiyada oo kale shaxaad isisiinta sadaqada sida ay baabuurta iyo basaska isaga dhiibaan sida ay maqaayadaha isaga dhiibaan iyo cuntada kulli anigu ma arkin ummad kale oo sidaas deeqsi u ah intii aan noolay adigu haddii aad aragtay dad Soomaali ka deeqsisan fadlan nala wadaag